maalin maalmaha kamid ah geel uu fuulay oo nabiga cali uga soo goynayay saxaabadii hoos geedka hoos fadhiya ayaa saas u fiirshay waxay arkeen lugihiisa yaryar ayay arkeen markaasay ku qosleen markaasuu arrintii u dhibsaday rasuulka arrintii maqlay markaasuu yiri mimma tadxakuuna min saaqay ibn mas'uud maxaad ku qoslaysaan ma labada shansho ee mas'uud ku qoslaysaan wali waxa la yiraahdaa Abu Jahl waxa dileen laba wiil oo dhalinyaro ah yaryar oo reer Ansaar ah ayaa dileen waxa la yiraahdaa labadaas wiil waxay ahaayeen Awf iyo Muawid ibn Afra labada saxaabi waxay ahaayeen waxay maqli jireen dibka uu geystay ummadda islaamka iyo nabi maxamed ugu horeeyay calayhi salaatu wasalaam ayay maqli jireen markaas waxay lahaayeen markay arkaan dadka waaweyn oo saxaabada ah na tusiya Abu Jahl aawi keen yira Abu Jahl hada tusiya markii la tusiyay ayuu inta ku kala fakadeen ayuu ninba sayf ku dhuftay way jirciyeen asoo jiraacsan oo dhulka yaala ayaa waxa la yiri waxa dhamaystiray saxaabiga la yiraahdo Abdullah ibn Mas'ud ayaa dhamaystiray inta koray halka uga istaagay ayuu qoortiisa soo jartay madaxa ayuu ka soo gooyay waxa la yiri Abdullah ibn Mas'ud markii laga sheekaynayo wuxuu ahaa saxaabi aan lahayn waxa la yiraahdaa muuqaalkiisu uu ahaa caato ayuu ahaa aad u jiriyar ayuu ahaa maalin maalmaha kamid ah صادقتي وحو هاي صاحب سر رسول الله رسولك الا u khidmay jiray saxaabigaas maalin maalmaha kamid ah geel uu fuulay oo nabiga cali uga soo goynayay saxaabadii hoos geedka hoos fadhiya ayaa saas u fiirshay waxay arkeen lugihiisa yaryar ayay arkeen markaasay ku qosleen markaasuu arrintii u dhibsaday rasuulka arrintii maqlay markaasuu yiri mimma tadxakuuna min saaqay ibn mas'uud maxaad ku qoslaysaan ma labada shansho ee mas'uud ku qoslaysaan والله وحي كعليس بدنيه ميزانك حسنات وعليس بدنيه بورت أحد وكعليسه صحابي الإساس الله وحي وحي جلير أيوها ما أنت أصبرك أبو جهل وكرك كفوري أبو جهل وحي والله ما أنت ما أنا ولي أذكر آيات كفت أبو جهل ما افتكسي بعيش هذا الله وحي ولي ما أنا هويسن أي ما أنت صار أنت عبد الله بن مسعود ما أنا ولي أنا هويسن ليس لوين هو هنيك أبو جهل واحد على مركه halkaas inta ku dhacay wali waxa la yiraahday markuu kor fuulay oo isdahay qorta ka soo gooy hal mar oo saas inta isiro ka dhacay la yiraahday waa ka dhacay asoo markay inta soo koro meeshii la soo koray oo qorta ka soo gooy Abu Jahl halkaas ayuu ku aakhiristay waxa dhacay niman badan oo sanadiidu Qurayshin ah meeshaas ay ku dhinteen gabal yar oo fare ku tirisa oo kamid yahay Abu Sufyaan ayaguna cagooday ku baxsadeen markay arkeen waxa meesha ka jira إلا أن لقد بعدين أي كعرة وافقين يمكن كيفك هي ظلمك هي معرة إسلامية أصاب حي هل كاسوا إلهي تجري وانتهت هذه المعركة العظيمة الضاحنة بفوز سحيق للمؤمنين الصابرين هل كاسوا كل معطي بشارة ذني وحي كسعود هذا ما قربت شكت الصومالية دي كنا ولدافعها عالمك إن مركزك معمور أونلاين وقادنا يواردي عصور والد ملاعيد وبدكاغا أو كنول بالقرباء عدكو تربية الإنسان أنا كوهاية هموغاني إن مركزك معمور أونلاين حتى مركزك علم تلقو برتو وحكم دا حفظنت قرآن كريم برشد اللغة العربية تجويد سيرة النبي النصوب النحريسي النبت قليو كركي سهاهاتي أذكار إيو تربية وبدكا هذا ببرشوي هموغان مركزك معمور أونلاين وكاها قبتيرا يدمان باهيها وحبرشوي وبدكاغا هذا وحي فافاهيني تاسي ديرنا كلا حديد نمبر هذا شاشة دكاغا موضا